الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي السقالات هي كتاب كان إغاثة اللهفان من مسايد الشيطان لابن قيم رحمه الله. شفاء أمراض القلب بالأدوية الإيمانية وبالقرآن. waxaan ka soo sheekaynay jirada qalbiga ku dhacda iyo qalbigu noocyada uu u qaybsamo. waxaa jira dawooyin lagu daweeyo qalbiga jiran. biidni illaahi tabaaraka wa tacaala gadaal baan qayba ka sheegi doonaa laba arrimood baan hadda soo horumarinaynaa ahamiyadda ay leeyihiin. labada arrimood mid waxaa weeyaan iimaanka, midna waa qur'aanka. waxaa la yidhaahdaa qalbigu sida jidhkeennu uu ugu baahan yahay cunto oo qofka binu aadamkii qadaa iyo cashaa iyo aad ugu baahan tahay buu qalbiguna ugu baahan yahay nolol iyo wuxuu quuto. waxa ugu muhiimsan oo qalbigu uu helana waa iimaan weeyaan. sidaasoo kale qalbiga jirooyin baa ku dhacee dawo u baahan yahay. dawada ugu weyn oo qalbiga uu u baahan yahay ama uu ku dawoobana waa qur'aanka weeye. labadaas shay marka oo ah iimaanka iyo qur'aanku waa cuntada iyo dawada qalbiga weeye. الله سبحانه وتعالى وحولي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. تذكير وحيدين يمد موعظة ووعدي وبرارو وذكر الله وترغيب وترهيب وحكمة ووعد إلهي سبحانه يوحي إيمانك روح ماشو كقاضا لها وعد قاوي شفاء وعافمات ويسوونه وقرآن كيبا قفك إلهي كعافنيا. ولذلك بقى اللي هذا أمراض قلبك ونهرو الشيقنو الشهوات إيا الشبهات وقيب سنته لبضا قيبات بوحل ودوية وقرآنك. القرآن شفاء للنوعين لبضا بإساقا الدووة لكن إنو الدوية وحي كحرنتها اللي هذا قفك إنو فهميه وجدد قرآنك إيا تدبر كيسية معاني دي سينا وقرنايو. qur-aanku waa shifaa buu u yahay caafimaad maradka shahawaadka la yidhaahdo. shahawaadka shahwatulbatni baa jira, calooshu shahway leedahay, oo shahwatulfarji baa jiro, farji iyo xubanka taranku shahwuu leeyahay. shahwatulisaan baa jiro, carabku inuu hadduu rabaayo xantii iyo xumaantii iyo waxyaabaha noocaasa uu sheego. shahwatulkalaam baa afkiiu leeyahay. marka shahawaadka sidoodaba guud ahaan waxa caafimaadka ugu muhiimsani waa qur-aanka weeyaan. sababtuna waxaa weeye qur-aanka waxa ku jira oo xikmad ah, waxa ku jira oo almawcida alxasana wacdiga wanaagsan ah, waxa ku jira oo targhiib iyo tarhiib. qur-aanku waxbuu dadka jeclaysiiyaa, jannaduu jeclaysiiyaa, raxmadda ilaahay buu jeclaysiiyaa, ridaha ilaahay buu jeclaysiiyaa. tarhiib baa haddana qur-aanka ku jiro, wax cabsigelin baa ku jirta, cadaabkiibuu ka sheekeynayaa, wax badan oo xumaantii abuu ka sheekeeyaa. sidaas daraaddeed taana qofka waa laga cabsigelinaya. zuhdigii adduunyada iyo qofku adduunyadu waxay tahay iyo xaqaaradeeda iyo inayna wax weynba meesha oolin qur-aankaad ka helaysaa. targhiib fil aakhiraan qur-aankii ka helayna in aakhira dadka la jeclaysiiyo oo nimcada iyo naciimada wax wanaagga ku jira uu qofkii. alamthaalu lqisas buu qur-aankii ka buuxa, qisooyinkii iyo ummadihii inaga horreeyey, taasoo noogu sugan tahay cibro iyo maaragtay inuu wacdi inuu qofku halkaas uu ka qaato. marka waxaa le qofkiga qalbiga saliimka ah markii uu arko waxa anfacaya oo ah wixii noloshiisa adduunka iyo wixii aakhara labadaba, taasna qur-aankiibuu ka wada helayaa. qur-aanku amraada iyo jirooyinka isaga ayaa zuuliya, gaar ahaan ujeedooyinka faasidka ah ee qofka qalbigiisa kusoo dhacaya isagaa ka zuuliya. qalbigu markuu wanaagsanaadaa la yidhaahdaa iraadadiisa doonidiisa wuxuu doonina way wanaagsanaanaysaa, wuxuuna u laabtaa fitradii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray ee wanaagga ahayd ee alla ku khalqay yuu qalbigu usoo noqonayaa. afcaashiisii iyo ficilkii marka kasoo baxaya baa wanaag noqonaya. markaasuu qalbigu wuxuu ku qadayn uu qaataa iimaankii iyo qur-aankii, waana waxa uu taskiyada uu ka helayay iyo taqwiyada xoogga uu ka helay, farxadda uu ka helay, suruurka iyo nishaadka iyo firfircoonida meeshuu ka helayaa halkaa wey. sidaas daraaddeed qalbigaasi markuu waxaa helo wuxuu ku usii wax la yidhaahdo zakaatulqalbi ama tahaaratulqalbi. qalbiga inuu dahirmo, takhallus dunuubtii oo dhan uu ka tago,
toobad ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo. qofkuna hadduu ilaahay toobadaa u waafajiyo, waxaa la yidhaahdaa waxyaabihii xumxumaa ee ku dhex jiro oo dhan buu ka fogaanayaa. markaasa awood qalbigiisii baa yeelan, ujeeddadii iyo khayrkiibuu u hogaaminayaa. marka waxyaabihii faasidka iyo xumaantii iyo radi'adii iyo waxaasoo dhan buu ka tegayaa. qalbi qawi ah oo maaragtay xaqi qaata oo meeshuu walidaalika sidaan soo sheegnay, qalbigu isagaa markaa xubinka hogaamiya, sida boqorkii oo kale la daba socdo. intii kaleo dhan waxay noqon raciyad iyo wixii mas-uulka laga ahaa, kulligood xubnihii isagay maqlayaan, isagay dabagelayaan. qalbiga saliimka ah baa la yidhaahdaa alqalb. zakada iyo tahaaradana ma gaari karo haddii uusan awaamirtii alla qaadanin oo dee xumaantii uusan ka joogin. qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum buu eebelay subxaana wataala. waa daahiri wey. sidaasaa marka tahaaradaasna waxay ku timaadaa, waxay imaanaysaa bacda gadi albasar wa xifdi alfarj. markuu qofku xumaantaa daayo baa ilaahay qalbigiisa isagana dahirayaa. ilaahay quluubteenna haynoo dahiro, xumaantana alla haynaga ilaaliyo.